kulan looga hadlayay dhibaatooyinka dhimirka oo kamid ah xanuunada halista ah ee ku dhaca dadka ayaa lagu qabtay Jaamacadda Minnesota ee ku taala wadanka Mareykanka. Awil wariyaha telefishinka Universal ee jooga wadanka Mareykanka ayaa warbixintan soo diray. Jaamacadda gobolka Minnesota ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay dhibaatooyinka iyo xal u helidda xanuunka dhimirka kaasoo ka mid ah xanuunada muddooyinkii ugu dambeeyay sida weyn saameynta ugu yeeshay bulshada soo galootiga ah ee ku nool gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Kulankan oo ahaa mid lagu qabtay gudaha jaamacadda gobolka Minnesota oo ay soo qaban qaabisay qaybta u qaabilsan barashada cilmi nafsiga iyo adeegga bulshada ayaa ahaa mid lagu lafagurayay hanaanka ugu wanaagsan ee loola macaamili karo qofka qaba xanuunka dhimirka iyo weliba sidii loo caawin lahaa. Fartuun wali oo iyadu ah agaasimaha iyo asaasaha xarunta Isuroon oo ah xarun u qaabilsan horumarinta iyo daryeelka haweenka ayaa kulankaas lagu casuumay isla markaana ka soo jeedisay casharo dhibaatooyinka uu ku hayo cudurka dhimirka ummadda Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota. Waxa ugu imaanay iskuulkan inaan kala hadalno in ay fursadaha siiyaan Soomaali badan oo u baahan inay noqdaan ku takhasusan cilmi nafsiga in howlaan qabanay kamid tahay oo adiga bishii ama labada bilood maraan u nimaadnaa jaamacadda especially qaybtan. Sidoo kale Fartuun wali oo kamid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada isla markaana maanta kulankan ka jeedinaysay casharo ku aadan dhibaatooyinka cudurka dhimirka uu leeyahay ayaa waxa ay sheegtay in ay u gogol xaari doonto isku xirka jaamacadda gobolka Minnesota iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota. haddeerta waa maqlaysay dadka madaxda waxay dhaheen albaabadan furayna waxaan rabnaa inaan partners la noqono marka hadafkeenu always waxa way inaan saxan u baan ku jirnaa in albaabo la sii furo oo dadka hadda dhalinyarada high school ka soo baxay kuwa undergraduate soo dhameeyay inay tahay inaan waxaan barno also inay bartaan dhaqanka Soomaalida si hooyooyinka markay ama meesha ceerta tagaan ama meesha ay guryaha ugu tagaan in midabta koor ku sameeyeen markii uu soo gabagabay kulankii looga hadlayay cudurka dhimirka ayaan waxaan fursad u helnay in aanu mikrofoonka la dhexmarno ka soo qaybgalayaashii oo iyagu ahaa arday wax ka baratay jaamacadda gobolka Minnesota. Makela waa gabar ardayada oo wax ka baratay jaamacadda gobolka Minnesota waxa ayna telefishinka caalamiga Universal TV u sheegtay waxyaabaha ay ka faa'iiday maanta kulankan waxa ayna tiri sida tan. Hi, my name is Michaela and I really enjoyed the presentation today. I thought it was really important to learn about health issues. Runtii aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo kulanka looga hadlayay xanuunka dhimirka oo aan dhageysto warbixinada laga soo gudbiyay waana arrin muhiim ah inaan wax ka barto arrimaha la xiriira caafimaadka gaar ahaan kuwa dhibaatooyinka ku haya bulshada Soomaaliyeed taasoo ay tahay waa inaan xoojiyaa aqoonteeda adeegga bulshada ee aan soo bartay. Kamaana hooy oo ka faa'iideystay aqoon kororsigii maanta hay'adda Isuroon ay ka bixisay jaamacadda gobolka Minnesota ayaa sidan sheegay. I thought the lecture was great. I knew Isuroon was operating in the community. Ashirku wuxuu ahaa mid wanaagsan. Waana ogaa in hay'adda Isuroon ay waxtar u leedahay bulshada. Aad ayaan ugu farxay in aan warbixintooda dhageysto. agaasimaha Isuroon waa qof ku wanaagsan curinta fikrado waxtar leh isla markaana ah qof furfuran oo run ahaantii ah qof si wanaagsan u matalaya xarunta. Director is very engaging and funny and thoughtful, so I think she's a great face for the organization and it was a great experience to get to hear her talk. Suudi oo kamid ah ardayda wax ka barata maadada adeegga bulshada iyo xiriirka iyo la macaamilka dadweynaha ayaa iyadana kulankan ka hadashay waxa ayna tiri. Anina halkan ardayga ka ahay for Masters of Social Work and I heard in Fartuun speak and it was really wonderful to see her be here and speak to all the other students of how we need more diversity and to learn more about the Somali culture. Bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota iyo guud ahaan Mareykanka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku soo baraarugay dhibaatooyinka xanuunka dhimirka kadib markii dhalinyaro badan oo xanuunkaasi asiibay kadibna dadaal dheer u galay sidii daryeel caafimaad loogu heli lahaa dadka uu ku dhacay xanuunkan dhimirka. waxaana hadda muuqata in bulshada si weyn u fahantay xanuunka dhimirka oo markii hore ay u haysteen in uu yahay mid aan waxba laga qaban karin balse hadda markii qofka ay ku arkaan astaamo ama calaamado muujinaya inuu qofkaasi qabo xanuunka dhimirka markiiba geeya xarumaha daryeelka xanuunka dhimirka. Awil Nuur Shire, Universal TV, magaalada Minneapolis.